waxaan aad ugu faraxsanahay maanta wafdi ballaaran oo hogaaminaya madaxweynaha dowladgoboleedka Puntland oo ay la socdaan madaxweynihii hore waxaan faroolay iyo wafdi ballaaran oo kale inaad maanta noogu timaadaan munaasabadan qadarinteeda iyo xushmadeeda iyo ixtiraamkeeda kulli aan idin hayno waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaaladiinii iyo dhulkiinii aad baan idinkaga mahad celinaynaa imaatinka aad noo timaadeen iyo safarka aad u dheer ilaa iyo meel aad u fog aad ka soo safarteen oo aan garan karayno culayska iyo miisaanka uu lahaa waxaana rajaynayaa insha allahu imaatinkiinaani inuu noqdo fure wax badan oo xal iyo wanaag iyo horumar intaba keenaya aadna aan ugu faraxsanahay inaan maanta aan isu nimaadno wixii wara dib baan u dhigan doonaa madaxweyne ku soo dhawow Kismaayo aad baan kaaga mahad celinayaa imaatinka adiga waftigaaga waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha dowladda Jubbaland madaxweyne ku-xigeenada gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynayaashii hore ee Galmudug iyo Hirshabeelle
koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland dhammaan inta halka joogta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. runtii aad baan ugu faraxsannahay sida diiran oo dowlad iyo shacabba maanta noola soo dhoweeyey. waan ka mahadnaqaynaa, waa waajib na saarnaa maadaama ay madaxweynuhu horay dhowr jeer u noo soo booqday inaan annagana u soo booqanno, la wadaagno farxadaha iyo murugadaba. waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo muddada aan joogno in arrimaha muddadii u dambaysay jubbaland ka jiray aan wax ka galno haddii ilaahay idmo. deegaanada dowladaha xubnaha ka ana waxay rabaan midnimo dhexdooda ah, dowladda soomaaliyeedna waxay rabtaa midnimo guud oo dadka u wada horseeda in bulshada soomaaliyeed loo adeego. waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis maalmaha halka la joogo in wax badan la isweydaarsan doono, culaysyada siyaasadeed ee dalka jirana ay ambaqaad u noqon doonto. waxaana ku kalsoonahay ilaahay idankiis in wax kastoo kale aragti duwanaana xal waara laga gaari doono, horumar iyo wanaag iyo dowladnimona waddadeeda la qaadi doono. aad baa iniga mahadcelinaya. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.